haddii wadda kala qaybiyana awooddoodii wasdid marka inaan u sheegno dadkaas siyaasiyiinta caraysan waktigiina waa dhamaaday ayaama hore waxay wadeen inay yidhaahdaan dowladdu waa ku fashilantay amniga dadku waa la qabsaday hadda taas waa shaqayn weyn hadda waxay yidhaahdeen financial management systemkii dhaqaalaha waa fashilay dad badan oo shisheeye oo awal gacan bixin jiro yaa noo diray maxaa yeele waxay arkaan dhaqdhaqaaqa xisaabtii arkaan inaan anagu ammaanadii ummadda loo dhigata inaan u ilaalino dadkii iyaga ahaa IMF-kii iyo World Bank-kii iyo European Union-kii yaa waxay leeyihiin dowladda waa dowlad nadiifa waa inaan dhaqaalo ku bixin waa inaan dhaqaalo siino iyaga waxay leeyihiin maya yaa la siin dhaqaale oo haddaan dhaqaalada siin doono Soomaaliya dalkaasay u jiri karaan marka dalkaasay u jiri karaan haddii iyagu ay soo taagnaadaan annagoo shaqaynayna oo wax wanaagsan ka shaqaynayna oo xaaraantii ka fogaanay oo ammaanadii ummadda u hayna oo shaqo wanaagsan u hayna oo markhaati ay ka noqdeen kuwiina gacan bidixin jira oo ay direen inaan nahay dad hufan oo transparency ah oo nadiif ah oo yiri keliya maaha waa fiicantihiin waxbaan idinku dahay bacdamaa waxayna noqon kartaa dad kale dadka shaki gelinaya ama dadka shacabka Soomaaliyeed kalsoonida ka qaadaya yay u dareenaya waa wax kale maaha xanaaqii baa ka batay marka qofka xanaaq ka bato wuxuu ku dhow yahay xoolaha waalida shacabka Soomaaliyeed way intaas ogaadaan ayaa loo baahan yahay